waxgaradka beesha dagoodiye ee ismaamulka Mandheera ayaa maanta raaligelin ka bixiyay arrin afartii bishan ay ka sameeyeen magaalada Mandheera haweenka beeshaasi oo sheegay in mid ka mid ah haweenkay u doorteen ugaas taasi oo keentay hadal hayn badan waxaana maanta si wada jir arrintaasi raaligelin uga bixiyay haweeneydii la sheegay in ugaaska loo doortay iyo waliba waxgaradka beeshaasi aniga xabiib macow yuusuf taariikh 4 sanadku cusub bish koowaad gabdhahayna dagoodiyay caleema saareen hadal qadaf aad naga dhacay qadafka asaga ahay beesha dagoodiy meel ay joogaanba mii magaalo waxaan ka raaligelay hadalka haday qadaf aad noqday tolkayda aad dhibaystay in aan ka raaligeliyo oo tolka meel aad joogaba aad iga raali noqdo jeeladii ugaasna waa ugaas oo xirmantiisa jeeladii Mandheera County abla dagoodiyana tii ayada ahayd walaalay waana ka raaligeli waana isku joognaa waa kan suldaanka inaan kula hadla saasaan ugu baxay ana magacayga waa Suldaan Cado Haruun waxaan suldaan oo ahay beesha reer dagoodiya oo Mandheera County aan u ahay maxaan ka raaligelin ka bixinaynaa hadalku maalin dhaweyta ka soo yeeray gabdhaha reer dagoodiya kalamadii ugaasnimadii ay gabdhihii ka noqdeen annagana raaliyan u nahay inay ka noqdaan aniga oo mas'ala beesha reer dagoodiya waxaan raaligelintaas cid alla cidii tolka oo dhibsatay meel ay joogaanba arintaas ayada gabdhihii waa ka noqdeen arintii ugaasnimada way ka noqdeen gabadha waxay leedahay xishmad ay xaqayna ka leedahay waa shia lady oo haweenka reer dagoodiye oo Mandheera County marka sidaa daraadeed intaas ayaan maanta isugu nimaadnay anigana tolkii meel aad joogaba arinta ay raaligelinta eedan maxay aan ka dabagalaa oo ayada in raali la ahaada oo tolka ninkii dhagta dhibaystay ay arintaas ay raali ka ahaadaan aan maxay aan ayada marka in alla intii muuqaan iyo maqalkaan maqlaysa intaasaan ogeysiinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayda waxa la yiraahdaa Geedi Samo Xuseen waxaan maanta iskugu imaanay halkaan hoolka waxaan iskugu imaanay ugaasiinta reer dagoodiye iyo gabdhaha reer dagoodiye kulankaas oo sababtiisa tahay arrin maalin hore media ka baxday oo gabdhahayna ay gabar caleema saareen Mandheera County caleema saareen jeel lady inay u noqoto gabdhaha ku nool Mandheera County hadal markii yar oo waxa ku jiray ugaasad la dhaha magaciisa raaligelin ayaan ka bixinaynaa meel kasta oo talka joogaba maamada walaashay xabiiba macow gudbana waxa loo doortay jeel lady na gabdhaha ku nool Mandheera County ee dagoodiya madaxdooda waaya xushmadu waxay leedahay awal bayleed wayna leedahay wayna ku mahadsan tahay warka ay naga aqbashay warka asaga ay dal iyo dibadba islaamka iyo Soomaalida dhibsaday waan ka raaligelinaynaa sidaas ayaan ogeysiinaynaa insha Allah Maxamed Sheekh Maxamed Al-Faqr warbaahinta Mandheera